waxaan ballan qaadayaa haddii aan ku guulaysto xilka madaxweynenimada ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee 4 sano soo socoto waxaan dhisi doonaa garsoor madax bannaan leh agab dhammaystiran iyo howlwadeenno tababaran waxaan ballan qaadayaa in aan bulshada koonfur galbeed ay heli doonto garsoor caadil ah oo lagu kalsoonaan karo ayagana ay ku kalsoonaan karaan wax walaaliyo wixii maxkamad iyo garsoor ku filan ay reer koonfur galbeed ay ku qanacsan yihiin ay heli doonaan ayaan ballan qaadayaa insha allahu tacaala haddii ay doorataan mudanayaal iyo marwooyin xildhibaanada sharafta leh waxaan ballan qaadayaa haddii aan ku guulaysto madaxweynenimada koonfur galbeed in aan si weyn u soo dhoweyn doono kuna dhiirigelin doono qurbo joogta ka soo jeeda koonfur galbeed inay ka qayb qaataan dib u dhiska iyo horumarinta koonfur galbeed iyo inay ku dhiiradaan inay sameeyaan maalgashi buuxdo oo dhinac walbaba leh waxay xukuumaddayda aada u dhisi doonaa howlgelinna doontaa qabanqaabo shirweyno oo ay isugu imaan doonaan dhammaan qurbo joogta reer koonfur galbeed si ay wax uga hayaan fikir talo maalgashi ugu soo biirin lahaayeen deegaanada koonfur galbeed